waxaa farxad noo ah shir maaliyadeedka bangiyada ee sanadlaha ah ee sanadkiisa labaad ah in rugta ganacsigu ay si mug weyn leh uga qayb geli doonto runtii aan ku hambalyeynayno mas'uuliyiinta bangiyada oo iskaashaday oo barnaamijkaasi sanad walba ka taxadar sanadkii labaadna oo sanadkan yahay marka waxaan leeyahay shir maaliyadeedka bangiyadu waxaan leeyahay ha guuleysto sanadkan waxaan rajaynaynaa si xoogan rugta ganacsiga iyo ganacsatadaba dhammaan inaan kasoo wada qayb galno 29 iyo 30 bisha oo ka dhici doonta Hotel Jazeera runtii waxaan is leeyahay waa sanadkii labaad oo ay qabanayaan ururada bangiyadu oo waxaan leeyahay aad u qurux badan oo is leeyahay bangiyadu markaad fiiriso Chamber of Commerce-geena wuxuu ka kooban yahay 12 sector waa sector kamid ah sectorada banking and remittance waxay kamid yihiin 12 sector kamid ah intaas kadib bangiyadu waxay waa qaybta financialka noogu muhiimsan marka fiirisid dhaqdhaqaaqa dalkan marka laga hadlo markii hore xawaaladii ka yimaadeen xawaaladii bangiyo isu bedeleen bangiyadii hadda waxa ku tiirsan dalkan oo dhan waxa aan dhoofinayno ama aan soo degsanayno ama badeecadaha aan kala gudbinayno ama lacagta ay dibadda inta ka timaado la dirsanayo waxaan wada dhaxmarnaa bangiyada dhaxmarnaa marka runtii waxay naga dabooleen meel weyn oo muhiim ah sectorka import and export wuxuu ku daaban yahay oo marba muhiim u ah sectorkan oo bankinka marka waxaan leeyahay waxay kaloo hadda ay qayb weyn ka yihiin waliba hadda maalgelinta oo bulshadeena oo sida hadda dad fiis real estate-ka magaalada Muqdisho ka socda xoogiisa wuxuu ka yimaadaa bangiyada ka yimaadaa waxa kaloo hadda naloo ansixiyay sharcigii oo triple B-ga public private partnership oo aan rajaynayno inaan marka la galno dawladda iyo maxaan ku raahdaa ganacsiyo badan oo dibadaha ka imaanaya ganacsiyadeena gudahaba waxaan isleeyahay marka waa meelaha kaliya ugu muhiimsan oo hadda triple B-ga qayb xoog ka qaadan doona waxa dareemaysaa in hadda dekad cusub aan dhisan doono inaan airport cusub aan dhisan doono oo habka triple B-ga waliba lagu dhisi doono iyo warshadihii oo dalka oo dib u soo noqonayo waxaasoo dhan waxay ku noqon doonaan habka oo triple B-ga marka bangiyadu qayb weyn ayay ka noqon doonaan arrimahaas waxaan isleeyahay waa meesha dhaqaalaheena uu ku urursan yahay oo dhaqaalaha dalka oo dhan uu yeelo marka waxaan rabaa inaan si gaar ah uga hambaliyo sanad guridooda labaad oo ay soo bandhigi doonaan ay qaban doonaan maxaan ku dhahay xafladan si gaar inaan ugu mahad celiyo bangiyadan iyo association-kooda iyo ururkooda iyo 13ka bangi ee iskaashaday ee maanta meesha aragti maraya taxadarkaas waxaan leeyahay aad ugu mahadsantihiin shaqada aad dalka haysan oo ku ammaanantihiin horumarka iyo dhaqaalaha dalka aad qaybta ka tihiin waxaan leenahay intaas iyo in ka badan inaad si wadaan oo jeclaan lahayn ganacsatada import and export-ga ana waxaan rajaynaynaa mar dhow in dhaqaalahooda uu isu bedelo maxaan ku raahdaa beera iyo xoolo iyo kalluumaysi bangiyaduna ay qayb ka noqon doonaan marka waxaan rajaynaynaa dalkan hadda waxba soo dhoofsadaaye oo dibadda ka keenaye in aan isu bedelno inaan export noqono insha Allah hadii la yiraahdo oo beeraheeni iyo warshadaheeni iyo maxaan ku raahdaa xoolaheeni iyo kalluumaysigeeni ay bangiyaduna ay qayb weyn ka noqdaan inay la maalgeliyaan ganacsataas ku howlan hadda in ay ka shaqeeyaan beeraha iyo xoolaha iyo kalluumaysiga hadda gacan weyn ay siiyaan oo beeraha waliba khaasatan si gaar beeraha waa gacan weyn ay ka geystaan maxaan ku raahdaa xoolahana sidoo kale tan waa rajaynaynaa inay hadda ay qaybtan hadda loo bilaabay oo insurance-ka iyo inay qayb ka noqon doonaan kalluumaysiguna waa waxa ugu muhiimsan oo isleeyahay waa isla talaabo qaadi doontiino hadda degdeg ah loo bilaabi doonaa insha Allah warshadaha si gaar ah maskaxdan ugu haynaa bangiyadeenu ma ka maarano iyaga dhaqaalihii dalka noo hay gacanta ay ku urursan yihiin iyaga waaye wadankani infrastructure-kiisa iyo howlihiisa iyo in markaan wax weyn aan u soo jeesano laga maarmaan waaye jidadkii oo toll gate-ka ahay oo dhaadheeray oo wadankan la maal gashanay ajnabi ka sugumeynee in bangiyadeenu iyo ganacsateenu gudaha inta iskaashadaan wadooyinkan dhaadheer oo jidadkan inaan isla sameysano oo toll gate la saaro oo dhaqaalaha dalalka lacagahan tirada badan oo la hayo waa meelaha laga helay bangiyadu waa inay bangiyo kala soo waaridaan bangiyadeenu naguma filla laakiin bangi kasta waa inuu bangi kaleeto oo joint venture la noqdaa si ay maaragtay ay wadanka ay dhaqaale badan iyo lacag badan ay u keenaan iyaga laftooda marka waanu hambaliyo gaaran u diri doonaa 13 bangi iyo maamulkooda iyo gudoonkooda waxaan si gaar ah iyadana aan ugu mahad celinaa bangidaas waxa hooyo ah bangiga dhexe ee Soomaaliya oo runtii shuruucdooda iyo nidaamkooda iyo horjooggoodaba ilaaliya marka bangiga dhexan waxaan leenahay aad u mahadsantahay hawsha wanaagsan oo bangiyada aad la qabanayso waxa kale oo asagana soo biiro bariyahan aad u shaqo bilaabi doona bangiga horumarinta oo asagana aan isleeyahay wax badan oo dalkeena uu ku soo korin doona marka waa iswada kaashan doona waa mahadsantihiin